السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله waxaan hor fadhido walaashin deeqo youtube channelka naga daawanaysin oo youtube channelkiina waa youtube channelkeena tubta toosan asxaabta inta hore nolol soo joogto waxaan leeyahay aad mahadsantiin ma sha Allah ku soo dhawaada qalbi jecel iyo qacmo furan ma sha Allah li Allah ayaa mahad iskale ma sha Allah aniga caafimaad qabayso nabad celiyay inigana sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad wacan tihiin qof waliba xilliga uu tahay waxaan leeyahay wanaagsan maanta waxaan rabaa reaction buuqiisa watay inaan iga daba geeyo reactionka aan bixinayana wuxuu noqon doonaa videogii ay soo dhigtay masha Allah afnaan aadan oo ay kaga sheekeynaysay story time-keega amba nolosheeda ay noogaga sheekeynaysay masha Allah gabadhaas horta videodeeda aad iyo aad baan u jeclahay nolosheedana waa midna taabsatay dhammaan aniga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku xidhanba gabadhaas waxaan leeyahay hambalyo masha Allah iyadoo maanta gaadhay 100,000 subscribe bal waxaan rabaa videogan caawa ay ka hadashay inaan anigana ra'yigayga aan ka dhiibto iyo meelaha qaar oon rabo inaan dul istaago bal videogii afnaan waa kana bal ila dhageysta gabadheeda aabaheeda soo wacay markay soo wacay asigoo ma aragtay oo ka jajabsan tahay yani asigoo oo calacalaya camal oo dhahay maxasaan igu galaya maxasaan igu sameynaya aniga cunugteeda bas la weydiisanaya cunugteeda leeyahay inaan arko aaba ahay adiga maanta hooyaa tahay ma dareemi kartid miya xanuunkeyga iyo waxyaalaha saas aniga bal asxaabi waad dhageysateen afnaan waxay dhahday markaan ninkii gurigiisa aan uga soo tagay warqadiina aan ka qaatay tiri uu gurigiina naga soo caydhiyay warqada habay siiyay tiri laakiinse hadduu u baahan yahay ilmihiisa inuu arko amba rajo uu ka leeyahay noloshiisa dambe inuu ilmihiisa arko gurigii aan deganaa ayuu naga soo bixishay dhahday kadibna gabadhu meesha ay deganeed inay kasoo tagtay bay tagtay dalka Belgium bay tagtay iyadoo halkaa hooyadeed kula nool waxay tiri aniga oo toddobaad yani gurigii markii la siiyay amba nolosheeda cusub soo dhaweynaya waxay dhahday intuu soo wacay waa ninkeygii hore ayuu igu dhahay bay tiri afnaan waxaan rabaa gabadhayda inaan arko xaasidnimada intaa leegma wanaagsano maxaad sidaas dhan igu galaysaa maxaad saa igu sameynaysaa bal wiilkan ila arko oo su-aasha meesha taala waxay tahay maxaa ka khaldan wiilkan wiil caadiya miyaa hadduu qof caadiya oo maskaxdiisu shaqaynaysa hadduu yahay gabadhii uu shalay xumeeyey uu soo eryaday oo weliba xilli adag amba nolosha ay u baahnayd qof garab istaaga iyadoo uur leh yaa wiilkii soo caydhiyey ee soo eriyey maantana bal siduu ku keenay inuu ku iraado gabadhee maxaan kugu sameeyey maxaad se iga cadowsanaysaa xaasidnimada intaa leegna maxay tahay kaalay gabadhan shalay tolo markay uurka lahayd ninkan miyuuna ogeyn inay dhalayso war miyaanad ogeyn 9 bilood oo 1 iyo 2 iyo 3 leeri maalmo kooban marka lasoo dhaafo inay gabadhani dhali doonto aqligan maanta aad ku raadinayso gabadhaada aad dhasheed leedahay gabadheeda waxaan rabaa inaan arko waxaan rabaa inay dadka iga taqaano sawtii shalay markay gabadhani ay gurigaaga kula fadhiday ay naagtaada ahayd ee adiga maahayna qof kale ayna rabin sawdigii garan waayey aqliga maanta aad ku garatay shalay tolo halku kaaga maqnaa aan weydiinayo waa taas midda meesha taale ee labaadna waxay tahay dumaroo waxaad ogaataan maalinta aad go'aan qaadato eed lugahaaga ku istaagto ee la arko noloshaada inaad maanta 2 tallaabo aad qaadi karto eed rabto inaad wax qabsato inaad sidaa lagugu wareegayo ilmo lama doonayo laakiinse nimanku waxay rabaan amba gabadhaas hadda ninkaas soo raadinayo ilmo uma soo raadinayo because ilmo hadduu u raadinayo shalay toole ayuu gabadha because ilmaha hadduu u raadinayo shalay ayuu gabadha wanaajin lahaa because uu ogaa inay uur leedahay beritoole ilmahan u bannaanka iman doono hadduu aabbi iyo mas-uuliyaddiisa eegayo laakiinse now gabdhow aqligiina ka shaqaysiiya ninkani wuxuu rabaa noloshii aad shalay toole ku jirtay oo isaga maahina aqligaagu qof kale una rabin oo isaga uun guriga aad u fadhiday oo isna bannaanka wuxuu rabo uu kusoo samayn karo oo adiganu tii gurigaan u fadhiday hebelow maxaad taa u samaysay hebelow saas maad iga daysid dharaartiina inaad guriga uga shaqayso habeenkiina inaad isaga ay lilmadu labada kaaga dilaacdo oo marna lagaa sii tallaabsado habeenna lagu saamaxo habeenna lagaa qosliyo habeenna lagaa farxiyo habeenna waxaan ku yiri sidaa hadu eedo ayuu rabay afnaanay maasha Allah go'aan baad qaadatay gabadh go'aan leh ahaw go'aanka aad shalay qaadatay maanta aad aragto iftiinkiisii ood quruxda noloshaada iyo quruxda gabadhaada had aragto
ani waxaan ku leeyahay go-aankaagaas ku taagnow ilmihiisa hadduu rabo iyo hadduu jecel yahayna dee uma diidanid maasha allah boynti wanaagsan ood ka dhawaajisayna waan kugu taageersanahay maadaama aad tiri anigu ninka waxaan rabay inaan ka aarsado oo markii maanta ii baahnaayo sidaa ii soo wacay anigana afnaan waxay dhahday anigana waxaan rabay tiri gabadhu ilaa intii 18 sano ay ka gaadhayso maan rabin bay tiri inuu arko sawirkeyga inuu maqlay iska daayay sawirka gabadhiisa inaan tusa maan rabin bay tiri laakiinse haddana maasha allah waxaan isiri bay tiri wiilkan oo shalay toole sidaa kuu xumaynaya haddana maanta ilmahan yar allah ayaa siiyey subxaana watacaala isagaana wanaagan yani la rabay adiguna ha xumaan baan isiri bay tiri xumaantii shalay laguu geystay xumaan ha ku sixinee maanta maadaama aan ka garab sareeyo oo ii baahan yahay oo meeshii shalay aan taagnaa uu taagan yahu durba maanta gabadhaydiiyo maalmo yar jirta intuu isoo waco sidaa ii baryaayo waxaan isiri bay tiri gabadhaada waad arki kartaa waanad la hadli kartaa mar kasta ood waqti haysatana gabadhaada intood u timaado ayaad soo buuqan kartaa maasha allah qof geesinimada lagugu sheegay waa taasoo kale waayo qofka walaalkaya markuu shalay toole kaa khaldamay amba markuu shalay toole isagu siduu doonaba ha kugu sameeyee maanta markaad aragto inaad ka garab sarayso amba uu kuu baahan yahay lama rabo xumaantii shalay uu kugu sameeyey inaad u akhridee maasha allah boyntiga waxaan ku leeyahay geesinimo midii ugu wanaagsaneed ayaad afnaanee muujisay aad baan aniguna taa kugu garab taaganahay laakiin go-aanka kale eed qaadatay ee ahaa noloshaada inuu ninkaasi ka baxo waataa maanta had aragtid natiijadeedii waataa maanta had aragtid quruxda adiga niga muuqata iyo quruxda gurigaaga iyo quruxda gabadhaadaaya haddaad maanta ninka sidii ula sii joogi lahayd quruxda maad yeelateen habeenkiina isagaad ka fikiri lahayd maalintiina cunugtaad hayn lahayd naftaada iyo dadnimadaada iyo quruxdaada ayaana meesha ku baabi'i lahayd waa midda qurahaatay raggu rabaan gabdhow ogaada waa midda qurahaata ay raggu maanta rabaan bal waxaan rabaa videoga inta kale inaan ila wadaago aniga yani ku qosli jiray waxay dhahay maxaa kugu sameeyay aasaanan iiga gale maxaa waaye xasilnimadan saan u weyn maxaa waaye ciilkan saan u fara badana ii haysid su-aalaas weydiinaya funny ah because ninkan literally noloshaad dhulma kaa baabi'iyey oo markaas wuxuu ku weydiinaa maxaa kuu geystay maxaa saan iigu gale but I don't care aan waxa iga gale ma jirin I'll be like abo waa markaade dulqaado markaada hadda videoga waad aragtaan afnaan waxay dhahday waxay tiri waxaabad moodaabay tiri nin aanan waxba igu waxaynin uuba hilmaamayba xumaantii intii leekayd oo igu sameeyey waayo horaa loo yiri qofka xumaanta laga gali yaa ma hilmaamo laakiinse qofka xumaanta gali isla markiiba wixii uu hilmaamaya amba uu iloobaya ninkani shalay toole gabadhan waxaan ku yiri intuu cunug yar caloosha u geliyey buu sidii la rabay u dhaqan waaye buu naag iyo suuq iyo wax kasta uu ka daba wareegay soo waxaad garatay maa maanta markay gabadhii go-aan qaadatay ay guriga hooyadeed imatay ay nolosheedii lugihii ku istaagtayna wuxuu ku leeyahay xumaanta intaa leeg maxay ka dhigan tahay maxaase kugu sameeyey maxaase saas dhan had igu galaysaa wixii dhanaayu shalay gabadhaas xumaan uu ku sameeyey uuba hilmaamayba subxaana allahi alcadiim markaa gabdhow iniga ayaa laniga baahan yahay nolosha quruxda badan leh sida aad rabtaan inaad inigu nolosha aad u samaysataan taana waxaan kaga baxayaa maanta ayuu qaladkiisii qirtay waan oran karnaa laakiinse waa goorma waa goor waxaan ku yiri qalbigii qofka uu dhankaagii ka madoobaaday waxay tiri anigu waxaan ku dhahay bay tiri shalay anu haddaan ku daba cararaayay shalay haddaad igu dhahaysay ammaan isi maantana anigaa kaa dalbanaya baan ku dhahay bay tiri ammaan inaad isiiso gabadhaama naga dhaxaysa gabadhaana waad arki kartaa waxaad ogaataan gabdhow mid ayaan rabaa inaan nii sheego ani ogeysiyo dhammaantiinba ninku markuu yani arko inaad go-aan qaadatay amba ad yani noloshiisii aad haddi kadib ka dhex baxday ilmuhu kusoo wareegaya maanta dhan ilmaha 9 ilmihii ninkan shalay toole ilmo muu raadinayn laakiinse maanta wuxuu raba maxay tahay afnaan buu rabaa inay u noqoto afnaanay go-aanka aad qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay ka noqonin halkan afnaan uu iga qoslisay waxaan ku yiri way tiri yaa aboowe heesti waxaan u qaaday way tiri ilowsha dhowida aboowe yaa wixii shalay toole aad igu sameynaysay goorma durbeelood waxaan ka yiri tiri nimbo waa markiisii waa markaagii xanuunka baasho ay leedahay maantana bal dulqaadaan ku yiri tiri dulqaada aniga 9 bilood ayaan soo dulqaatay insha Allah waxaan oran karnaa aniga oo aan rabin inaan videogayga nagu dheereeyo
midda aad ku gaari karto guulo fara badan oo sida afnaan oo kale maasha allah. waxa wanaagsan ay afnaan hadda samaysay mudan in lagu daydo maasha allah waxay tahay inayna qofkii shalay xumeeyey hayna u isticmaalin inay maanta yacni ilmihii yaraa oo meesha yaalay hay ka dhigato hubkii hay ku qaraaci lahayd wiilka xumaanta usoo geystay. ayse xumaanta qofka si aad uga rayso oo qofkaasi aad u tusto inaad guul fara badan ay gaadhay maasha allah sidii ugu wanaagsaneed ayay samaysay ayaan oran karnaa. waxaanad ogaataan qofka xumaan kugu sameeyay haddaad adigana xumaan ka horgeyso dhanka allah subxaana watacaala allahna ku caawin maayo. waayo afnaan waxay tiri nolosha quruxda badan leh iyo gabadheeda quruxda badan leh maanta maasha allah caafimaadka qabta wuxuu allah igu siiyey tiri noloshii adkayd ku jiray ayaan usoo samray bay tiri. ta kale labaad ninkii maalintuu u baahnaaday uu gabadhii soo wuxuu ku yiri ilmahayga inaan arkaan rabaana way u fasaxday maasha allah. marka halkaa waxaa inooga muuqata xumaanta lagaa galo inaanad xumaan ku sixin allah subxaana watacaala sabirkaaga ayuu eegayaa. xumaantii shalay lagaa galay allah ayaa caadila oo labadii nin qofka u jeeda isaga ayaa cadaaladaadiina ku siinaya oo waataa maanta afnaan heshaan dhixi karnaa cadaalad. inta gabdho samraaya oo guryahooga yacni aanan farxad ku haysan ambaa xumaanta maanta afnaan ay qaraarka ka qaadatay gabdho fara badan oo ku dhex jira ayaa jira. kuwaana waxaan leenahay samra allah subxaana watacaala ku xidhnaada allah go-aamadiina u dhiibta ducadiinana waa maqbuul gabadh kasta oo la dulmaayo oo maanta dulum ku jirta waxaa leenahay qacmaha haddaad alla u taagto dacwadaada amba ducadaadu waa mustajaab waa mid la aqbalayo. waxaan leenahay ducaysta samrana waayo allah subxaana watacaala waa kii lahaa culays fara badan waxa ka dambeeya farxad badan ayaa ka dambeyn doonta insha allah iyo nolosha oo ta aad maanta ku jirtaan ka wanaagsan inuu allah subxaana watacaala na siiyo. in video kale insha allah aan afnaan ka sugayno aad baad mahadsantihiin. waxaan leenahay haddaad ka heshay in fadlan u sheer garay asxaabtaada. wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu.